بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتنا غير تهودا ينقدر سنة ساي كسر هذا برنامج كحقته ورركا يريديو مركب لي وضبط داون دونتان أو حاكم ده إثيوبيان إيرلاينز أو ور عصب كسو صارتي استعمال كهودا صوماليا على قول لاوي أو ورركو قاضي اللي باندا برلمان كاي كسو جيدا ديجانا ديسا بوليس كاو حقيقي إنت لي صديق يو أسكر لو حري ديلك جناع صدي أسكري حاليا بيس كدري مقالة عرقابو سوماليلان oo shaacisay wax laga yeelayo askarigii xalay aabihiisa dilay falcelin yaab leh oo ka dhalatay dib ugu soo laabashada madaxweyne Farmaajo qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka xogta wararka ee radio Markabley u diyaar garooba barnaamijkaasi oo faahfaahsan aku bilaabo barnaamijka xogta wararka Ethiopian Airlines ayaa war cusub ka soo saartay isticmaalka hawada Soomaaliya qoraal ka soo baxay shirkadda diyaaradda Ethiopian Airlines isla markaana la soo dhigay barteeda Facebook ayaa lagu beeniyay wararka sheegaya in ay badashay qadka hawada Soomaaliya ay isticmaalaan sababo la xiriira dhacdooyinkii dhawaan ee hawada Soomaaliya shirkadda ayaa sidoo kale sheegtay in diyaaradda Ethiopian Airlines aysan joojin duulimaadyada hawada Soomaaliya isla markaana warkaasi uu yahay mid aan sax ahayn oo marin habaabin ah warkan oo ay daabacday BBC-da ayaa waxaa lagu saleeyay waraysi ay laanta amxaarada la yeelatay Musfin Tasafa oo ah madaxa shirkadaha diyaaradaha Itoobiya sida ay sheegtay BBC-da maamulaha ayaa waraysigan ku cadeeyay in go'aankaasi uu la xiriiro qatartii ay ku galeen hawada Soomaaliya maalmo ka hor iyadoo la raacayo habdhaqanka caalamiga waxaanu ku wargelinaynaa hay'adaha duulista rayidka ee quseeya marka shil noocan uu dhaco waxaa lagu wargelinayaa hay'adda duulista rayidka Soomaaliya iyo Itoobiya balse ma aanan helin wax jawaab ah ayuu yiri sidoo kale waxaa jirtay warqad la isla dhaxmarayay baraha bulshada oo lagu sheegay inay ka soo baxday xafiiska shirkadda Ethiopian Airlines taasi oo lagu xusay in shirkaddu joojisay duulimaadyadii dalalka Aasiya ee sii mari jiray hawada Soomaaliya shirkadda ayaa beenisay warkaasi kuna tilmaantay mid been abuur ah dhawaan laba diyaaradood oo shirkadaha Ethiopian Airlines iyo Qatar Airways ay kala leeyihiin ayaa isku dhici gaaray kadib markii maamulka Somaliland uu qalqal ku furay isticmaalka hawada gobolada waqooyi balse nasiib wanaag qadar aad u yar ayay ku kala badbaadeen diyaaradahaasi oo siday rakaab badan arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli Soomaaliya iyo Itoobiya ay ku dagaaleen damaca badda Soomaaliya ugu jirto Itoobiya xiisadaasi ayaa gaartay meel sare waxayna cilaaqaadka labada dal ku sii yeelanaysaa saameyn badan علي قود لاوي أيها ورر كقاضي حل باندا برلمان كاي كسو جيدا ديغانا ديسا مدحوينها مامور كهير شابيل علي قود لاوي حسين oo khudbad ka jeedinayay munaasabada cali masaarka golaha deegaanka cusub ee degmada Jowhar ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah علي قود لاوي ayaa khudbadiisa si weyn ugu weeraray xildhibaanada baarlamaanka ee ka soo jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Hoose isagoo ku eedeeyay in ay ka soo horjeedaan horumarka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan horumarka degmooyinka laga soo doortay iyo nabadgelyada guud ahaan deegaanka taariikhda waa habeenku weyn ummadda Hirshabeelle dal iyo dibad meesha ay joogto waxa loo xafladeeyaa golihii deegaanka iyo guddoonkoodii ee degmada Jowhar oo ah caasimadii gobolka Shabeellada Dhexe caasimadii dawladda Hirshabeelle waxaan leeyahay hambalyo waxaan rabaa inay waa nasiib badan tihiin guddoonka la doortay waxaad guddoon ka tihiin caasimadii state-ka caawana waxaa idin kulansan madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo golihii wasiirada ee golaha baarlamaanka guddoomiyaasha labadii gobol iyo 24 degmo ay ka kooban tahay oo goobtan ku sugan degmooyinkii guddoonkoodii
iyo 24 qof oo kaleentooda ururka haweenka oo gudoonkii ururka haweenka iyo gudoonkii ururka dhalinyarada iyo odayaashii idin soo xulay iyo bulshadii degmada Jowhar iyo xildhibaanada federaalka qaar kamid ah oo nala joogo waxaan hubaa inaad aad u nasiib badan tihiin waxaan leeyahay gudoonka la doortay iyo golaha la soo xulay intaba waxaan leeyahay hambaliyo runtii waa jidka aan ku hamihayno dowladda Hirshabeelle guud ahaan degmo kasta ee kamid ah inay qaadaan rabnaa sidaan loogu xafladeeyay waana naga go'an tahay inaan degmo kasta ee kamid ah in tagno sidaan uga xafladeyno golo la doortay iyo gudoon la doortay inaan goobjoog ka ahaano ayaa naga go'an hadii Ilaahay raalli ka noqdo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda arrimaha gudaha dadaalkan muujisay waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo odayaashii degmada Jowhar maalmihii la dhisayay waa runo wax kasta la dhisay dib badan ayay laga maraa waxaan u yeeray odayaasha dhaqanka ee degmada Jowhar nabadoon Xasan Qaasun kelimadu uu yiri waa xusuustaa madaxweyne ma ka go'anto uu yiri degmada inaad dhisto Jowhar waa iga go'an tahay in la dhisaan rabaa ayaan ku iri waa ballan qaadeen ballantina waa ka dhabeen odayaasha waa ku amaana waa mahadsantiin ayaan leh degmo kasto ee kamid ah dowladda Hirshabeellana odayaasha dhaqanka ee ku nool iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan ka rabnaa sidii loogu dhiiraday degmada Jowhar dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan say u go'aansadeen in golo deegaanay iyagu doorteen iyo gudoonay sii doortaan in la helo sidii ugu dhiiradeen iyagana inay ugu dhiiradaan ka rabnaa hadii Ilaahay raalli ka noqdo anaga naftayna waxaan la lahay war caasimadda waa dhib badan tahay waa ka culus tahay degmooyinka kale dib u dhigaan ugu la dhahay u dhigamayna meesha dhibka badan ka bilaabayna meesha dhibka yar waa noo fududahay aan ku dhahnay Ilaahay ayaana maadaas iska leh waa ku guuleysanay aad iyo aad u mahadsantiin cid kasta ee gacan ka geysatay xafladan quruxda badan iyo agaasinkeedana waa u mahad celinaynaa ballantaynuna waxay tahay dowladda Hirshabeelle guud ahaan degmooyinkeeda golo deegaanay la doortay gudoon la doortay iyo guud ahaan ummad taladeedu midaysan tahay barwaaqo iyo horumar ayaan rajaynaynaa jidka aan u rabno inaan ku hogaaminana waa sidaan in habeenkii 8 saac loo xafladeeyo ummadoo nabad hadii Ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad u mahadsantihiin hambaliyo ayaan leeyahay gudoonka la doortay nabadoon Xasan Qaasun arrinta uu ka dhawaajiyay ee ah golaha deegaanku inay shaqeeyaan golaha deegaanka waa shaqeynayaan waa waxaan u soo xulnay waa waxaan ugu talagalnay waa waxaan ka rabno inay horumar gaarsiiyaan degmadan nabadoon waa la shaqeynaynaa hawshooda wax xuran uga dhigaynaa waliba geed diblahan ka gooyaynaa wixii ka culus waa ka hor wareejaynaa hadii Ilaahay raalli ka noqdo waana kula shaqeynaynaa degmo kasta oo kamid ah Hirshabeellana sidaas ayaan ula shaqeynaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin guud ahaan cid kasta ee gacan ka geysatay nabadgelyada hadday tahay iyo hadday tahay abaabulka waan u mahad celinayaa runtii waa habeen taariikhi ah in 8 saac la xafladaynayo golo la doortay iyo gudoonkoodana loo xafladaynayo aad iyo aad u mahadsantihiin hambaliyo ayaan leeyahay ummadda Hirshabeelle ballantaynuna waa Hirshabeelle nabada ballantaynuna waa Hirshabeelle taladeedu midaysan tahay ballantaynana waa Hirshabeelle oo nabad isku doorato hadii Ilaahay raalli ka noqdo si gaar ah waa u mahad celinayaa xildhibaanada federaalka ee ku sugan goobta xildhibaan Fiyoore xildhibaan Cabdiraxmaan naguna soo noqdo oo mar walba jecel Hirshabeelle xaalad ay ku sugan tahay inay ka warqabaan runta waa ku amaanaya waa mahadsantiin ayaan leeyahay labadaas xildhibaan anagoo kuwa kale oo ayaga lamid ah inay faraqa dhagax ku wataan ay tuureynayaan degmadii iyo deegaankii laga soo doortana ay dhibaateeyaan horumarkiina u diidaan
idinkuna aad siiyey saac idinkoo ku faraxsan xafladaha iyo horumarka ka socda Hirshabeelle idinkoo ku faraxsan inaad la jirtiin waad ku mahadsantihiin kuwaasna waxaan leeyahay war ku dayda kuwa wanaagsan inaad degmada aad ku dhalatay iyo dadkaaga deegaankaagi dib u dhacowgooda aad ka shaqaysay maalin waliba iyaga dabka isugu dhiibtay isku dhibaatayso adduunkana sharaf ku heli maysid aakhirana ajir ku heli maysid muddaad leedahay mandatekaaga ka shaqeey muddada aad joogto horumarka iyo dadka midnimadooda ka shaqeeyaan leh kuwa kale iyaguna qaladaadka sameeyoon ognahay anaga hebel dhihi mayno waxaan soo aragnaa inay yihiin ilmo yar oo siyaasadda ku cusub oo alifley siyaasadeed danna mooday inay dadkooda iyo deegaankooda dhibaato ka hubiyaan waxaan leeyahay wax ku dheefi maysiin magacna ka heli maysiin iska dhaafa dadkiina iyo deegaankiina wanaagooda iyo horumarkooda ka shaqeeya labada is haysatana ka shaqeeya siday u heshii lahaayeen nabadgelyo uga shaqeey lahaayeen mar labaad iyo mar saddexaad waan u mahad celinayaa xildhibaanada federaalka ragga nagala joogo mudana wasiirka arrimaha gudaha waad ku amaanan tahay labada degmo aad dhistay in degmadii Jowhar oo caasimadda aad dhistay intii warshiiq aad mar labaad la dhiso intaba waa kugu amaana waxaan ka rabnaa inta soo loo sii dhawaada la rabaa degmooyinka kale waxaan rabnaa muddo gaaban inay ku wada dhismaan hadii la raali ka noqdo bishiba waxaan rabnaa 2 ilaa 3 in la soo saaro degmaan rabnaa si garba simanaha loo wado wasiir dawladna degmaha ka shaqeeyo wasiir ku-xigeenkana degmo wasiirka anaha ka shaqeeyo degmo agaasimaha guudna ka shaqeeyo anaguna diyaar waxaan u nahay meel kasta culeys ka jiro inaan iyo tagno booliska ayaa xaqiijiyay in taliye saldhig iyo askar loo xiray dil ganacsade booliska Soomaaliya ayaa mar kale ka warbixiyay dadka loo soo qabtay dilka ganacsade Abuukar Axmed Kaaba kadib muujado hadal hayn ah oo saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada qabsaday kadib markii kiiskaasi laga reebay warbixintii toddobaadlaha ahayd ee booliska afhayeenka booliska Soomaaliya Cornel Qaasin Axmed Roble oo waraysi siiyay Universal TV ayaa sheegay in 7 qof loo soo qabtay dilkii ganacsade Abuukar oo laga afduutay xilli habeen ah degmada Hiliwa kadibna meedkiisa laga helay deegaanka Garasbaale geerida wiilkaasi waa mid aad u xanuun badan sida booliska ugu dadaalay ma jirto kiis loogu dadaalay waxaa loo soo qabtay 7 qof oo taliyihii booliska Hiliwa uu ka mid yahay Abdul Fataax ayaa la dhahaa ninkaasi 4 askari iyo 2 shacab ah ayaa la eedeysan oo loo soo xiray ayuu yiri afhayeenka booliska wuxuu xaqiijiyay in dadkaasi kala yihiin taliyihii booliska degmada Hiliwa Abdul Fataax Qoslaaye 4 askari oo ilaaladiisa ah iyo 2 qof oo shacab ah kuwaasi oo toos loola xiriirinayo kiiska dilka daawadayaal barnaamijkii xogta wararka oo aad kala socoteen idaacadda Markable waa naga intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa dhammaanteen oo isku duuban nabaadiino noolu kulantay amaana Allah والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.